madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya William Samoei Ruto ayaa isku daygiisii ugu horreeyay oo uu ku doonayo dalada dalka Kenya ku guuleystay. William oo markii ugu horeysay u tartamay kursiga ugu sarreeya ee dalka Kenya ee madaxtinimada ayaa waxa uu ku guuleystay doorasho dhacday 9kii bishii August ee aan soo dhaafnay. Daba halkan waxaa idinku soo gudbini doonaa haliyadii doorkii lama ilaawanka ahaa ka qaatay guushii Ruto uu ka soo hoyay doorashadii dhacday 9kii bishii la soo dhaafay ee August. Wajiyadan oo gal badan ku lahaa guushii Ruto uu ka soo hoyay doorashadii ka dhacday dalka Kenya ayaa waxaa ka mid Veronica Maina waa xogeyaha guud ee xisbiga UDA. sidoo kale waxa ay ku lug lahayd ololihii Mount Kenya iyo isku dubaridka indhaynta iyo isku keenka xisbiga UDA iyo sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen Mount Kenya. Fudud waxaan u dhihi karnaa gabadhani waxa ay ahayd qofta ka dambeysay in si fudud ay ku soo gacan galaan Mount Kenya in Central isla markaasna codad badan oo aan laga filaynin Mount Kenya oo Ruto halkaas ka helay. Labaad ee doorka muhiimka ka ciyaaray doorashada Ruto waxa uu ahaa Dennis Itumbi. Ninkani waa hogaamiyaha kaniisadda Ruto. sidoo kale waxa uu ahaa agaasimihii hore ee isgaarsiinta digitalka aqalka madaxtooyada. waxaa door muhiim ah ku lahaa kooxdii u shaqeynaysay isgaarsiinta madaxweynihii hore ee Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Samoei Ruto doorashooyinkii 2013 iyo 2017 markaas oo uu ku lahaa door aad u muuqda guushii madaxweyne Uhuru Muigai Kenyatta. Dennis oo aaminsan isgaarsiinta iyo social media halka kaliya ee lagu dagaalgali karo inay tahay ayaa waxa uu ku dadaalay sidii sawirka Ruto iyo ajandaha Ruto uu aga gadi lahaa codbixiyaasha isagoo ku ilaaliyay ajandaha UDA iyo William Samoei Ruto inay had iyo jeer ahaadaan kuwa kaliya ee si fudud social media looga dhex arki karo isla markaasna qarash badan ku bixiyay influencerka ama dadka caanka ah sidii ay u soo bandhigi lahaayeen xogaha ku xisaabsan UDA iyo William Samoei Ruto taasi oo ka dhigtay in dad badan oo aan hore ula soconin ajandaha iyo siyaasadda Ruto ay ka dheehdaan halka kaliya ee dadka ay ku kulmaan ee social media. Qofka saddexaad ee guusha Ruto gadaal ka taagnaa waxa uu ahaa Xuseen Maxamed. bishii January 2022 ee sanadka kan waxaa loo magacaabay madaxa ololaha isgaarsiinta. sidoo kale waxa uu si degdeg ah ku noqday afhayeenka guud ee ololaha doorashada ee madaxweyne Samoei